shir Muqdisho uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo madasha badbaado qaran. Shirka ayaa hotel ku yaala xeyndaabka Harada Xalane ee magaalada Muqdisho waxa uu uga furmay madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo xubnaha madasha badbaado qaran ee uu horkacayo gudoomiyaha golaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaanshe Cabdullaahi. Kulanka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii kulamo saacadihii la soo dhaafay ay Muqdisho ku yeesheen madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ay ku gaareen is-afgarad la xiriira sidii loo qancin lahaa gudoomiyaha aqalka sare. Kulanka ayaa waxa looga hadlayaa arrimaha ku saabsan dhanka doorashooyinka iyo sidii ajadan loo dhan yahay looga hadli lahaa shirweynaha loo ballansan yahay ee la filayo inuu dhaxmaro dowladda iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira, isla markaana lagu qabanayo xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa magaalada Muqdisho ka socday kulamo gaar ah oo u dhaxeeyay madaxda dowlad goboleedyada, xubnaha madasha badbaado qaran iyo siyaasiyiin kale si loo dhameeyo khilaafka ka jira doorashooyinka Soomaaliya. Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ku baaqay in la cunaqabateeyo kuwa qaska ku wada heshiiskii 17 Sebtembar ee Muqdisho lagu gaaray. Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo laba jeer ra'iisul wasaare soo noqday kana tirsan baarlamaanka aqalka sare ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka weli ka jira doorashooyinka Soomaaliya. Senator Cumar Cabdirashiid oo qoraal la soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in qorshaha socda ee lagu baabi'inayo heshiiskii 17 Sebtembar uu yahay tilaabo weyn oo loo qaaday dhanka xasilooni darrada, isla markaana ay tahay in la cunaqabateeyo kuwa hanaankaasi qaska ku wada. Sidoo kale Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in ay muhiim tahay in la dhiso xasilooni ka dhaxaysa saamileyda dalka si dalka tilaabo wax ku ool ah dhinaca dimuqraadiyadda hor loogu sii qaado. Dadkeenu waxa ay filayeen tilaabooyin wax ku ool ah oo loo qaado dhanka dimuqraadiyadda marka loo eego waxa ay xukuumadii la soo dhaafay uu hogaaminayay Xasan Cali Khayre laga filayay inay dalka gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah. Qoraalkani ka soo baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli khilaaf uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka, isla markaana Muqdisho ay ka socdaan kulamo looga hadlayo sidii loo qaban lahaa doorasho loo dhan yahay.